بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ورولا علي وحنا هاي ماريا ودada isku xidha dawal ilaa diraba wadooyinka lacagta lagu maray Ethiopia oo hadda ku cusub wadanka waxaan nahay maxaan la yiraahdaa laanti labaad xagga maxaan la yiraahdaa dararka wadada waxaan nahay Ethiopia marka loo eego wadadii koobaad maxaan la yiraahdaa lacag lagu maro waa 223 kilometer hadda Ethiopia waxa maxaa la yiraahdaa wadooyinka lacagta lagu maro wali 500 ma buuxo 500 kilometer ma buuxaan hadda waxa la furay tii saddexaad oo Mojo Awasa marka laba loo qaybiyo qayb waa naga labada wado iyaga marka la isku daro waxaan ku kala duwanahay labada wado wadooyinka kale waa wadooyin xiran oo silig baa ku xiran gabigeega oo way xiran tahay gaarigu mar hadduu dhex galo kama bixi karo midda kale waxaan ku kala duwanahay qaabka lacagta loo bixiyo waan ku kala duwanahay iyaga waxa weeye waad gali tigidhka baad qaadanaysaa ilaa meeshaad ka baxayso markaad meeshaad ka baxayso ayaad lacagta ku bixini midda kale waxaan ku kala duwanahay iyagu xad ma galaan wadooyinka kale waa wadanka gudihiisa annagu xad wadan kale ayaan xad la leenahay midda kale wadadan kuwa kale taleenyaashoodu way ballaaran yihiin oo hadda Mojo Awasa ilaa waxay leedahay dhinacna waa labo afar maxaan la yiraahdaa leen bay leedahay Mojo Awasa maxaan la yiraahdaa balladkeyga Mojo maxana Addis Adama iyaduna waa 6 annagu labaanahay marka wadadeen way dhuuban tahay ka dhigan tahay midda kale waxaan totally ku kala gadisanahay oo aad u kala gadisanahay baabuurta maraysan noocyadeeda annaga 70% waa gaadiid maxaan la yiraahdaa isjiida oo weyn xamuul ah iyaguna waa gaadiyaasha yare raaxaysiga wax aynkaas ayaa maray inta badan marka culays badan baa wadada maray ay ka dhigan tahay inta waa yaani wadooyinka Ethiopia lacagta lagu maray hadda la bilaabay waxyaabaha aan ka mideysanahay waxaan kala duwanahay wadadeenu waa 223 kilometer diraba ayay ka soo bilaabantaa diraba ilaa 4 kilometer ayay dhex socotaa kadib gobolka City way soo dhex gashaa degmada Shinile ilaa iyo Kalabayt iyo maxaa la yiraahdaa Harunkaaleynta u dhaxaysa socotaa Harunkaaleynta laga bilaabo ilaa Duure aad biidilay ku dhawaanayso degmada Dambal ayay gashaa labada maxaa la yiraahdaa station hadhay waxay ku yaalaan Ayshaca maxaa la yiraahdaa ilaa 120 kilometer in ka badan wixii ka dambeeya degmada Ayshaca dhaxmataa marka waxay ka dhigan tahay hal ismaamul magaalo iyo saddex degmo iyo wadadu dhaxmartaa kadib ilaa inta saasay xadka ku gashaa saddex station bay leedahay saddexda station waxay leeyihiin maxaa la yiraahdaa shaqaale operation la yiraahdo oo isku jira technician qaar safety oo wadada ilaaliyo wadada maxaa la yiraahdaa shilalkii wax aynkaas maalin kasta patrol gareeya technician qolo waxyaabihii maxaa la yiraahdaa maadaama technology ku shaqeyno inay waxba xumaan leydka dhinaca maxaa la yiraahdaa electromechanical kina cilad ku yiman qaar ka shaqeeya qaar system oo controller ciyalka lacagta ururinaya qaar lacagta ururiya intaasi operation mandana waa 24 saac shaqadooda halkii position afar qof baa ku shaqeysa hal position hal ilbaab oo meesha furan oo lacag laga qaadayo afar qof baa ku shaqeynaysa saddex saac ay galayaan waa 24 saacadood saddex qof hal qofna waa badal yaani qofku inuu maalin kasta haddii xanuusto haddii wax noqdo marmar nasasho noqoto 24 saac inay iska nastaan marka afar qof oo hal position weeyaan hadda xafiiska positionkii waa qof laakiin kuwa operationku halkii position oo afar qof taas tirada shaqaalaha badisay
marka halkii station ilaa hadday ugu yar tahay 45 qof wax ku dhow yaa jooga waa shaqaalaha operationka una xaggan waxaa dheer shaqaalihii kale caadiga ah xarunta ka shaqeynayay marka shaqaalaygu waa ilaa dad 200 ku dhow oo contract iskugu jira dad joogta 159 inay yihiin maan malaynaya shaqaale joogta oo caadi shaqaale rasmi ah shaqaalaha halkan aan ku shaqaalaynaa bishaafurkooga halkan aan ugu sameynaa wax marqad meel kale uga timaado ma jirto inkastoo xafiiska xagga sare la yiraahdo ma jirto meel xarun wax shaqaalaysa waxna maxaa la yiraahdaa ansixisa ka baxsan ma jirto Ethiopia meel aynkana ma jirto xafiis aynkana ma jiro xafiisyadu waxa u badan yihiin hadda xafiiska transportiga diraba waa laan federal ah qofka ma shaqaaleyn karaan iyagu way dirayaan ma eri karaan xaggii sare waa inuu diraa marmar waxay u leeyihiin awood in ay qofka talaabo ka qaataan laakiin soo gelintiisii iyagu ma leh waa inay CPA Ethiopia soo marto oo federaalka ahayd way isku dayeen qaabka inay sameeyaan laakiin maadaama enterprise yahay waxaan ku doodnay in maxaa la yiraahdaa qofka xaggan warqadiisa laga diray halka lagu soo shaqaaleynayo in ay muddo dheer qaadanayso meeshiina operation tahay in yar hadii wax joogsadaan ay cilad keeni karto waayo haddii 10 qof oo lacagta ururinaysa ka tagto oo muddo 4 saacadeed ku soo galin kareen shaqadii baa joogsan karta marka taas aan uga dhignay qeylta kala dadkii agagaarku maadaama ay shaqada u baahan yihiin dad xaggan uga yimaada uma baahin maadaama ay bulshadii dadku inay afgartaan ay tahay taas waan ku guuleysanay shaqaaleyntii markaan shaqaaleynay waxaan la qabsatay oo kaleete shaqaalaha inta badan ilaa shaqaalahan 48 qof oo lacagta ururiya 12 qof oo supervisor ah 14 qof oo qolada tikada safety-ga ah iyo 12 qof oo technician ah waa shaqaale ku dhow maxaa la yiraahdaa ilaa 100 qof ku dhow waxyaabaha looga baahan yahay shuruudihii loo baahnaa ay board ahaan xagga ku soo ansixiyeen iyo leys xaggan xaqiiqada taali way noqon weyday hadda kuwa 48 hadaan idin sheego waxa looga baahnaa wax 10+2 leeyahay deegaankiina haddaad fiirsataan wax 10+2 leeyahay ma maqashay wali ma jiro wax 10+2 leeyahay qofku hadduu 12 digto waa 12 haddii uu 10 digtayna 10 weey marka arintii way isku kay qaban weyday kuwa technician-ka waxa loo baahnaa qoladan safety-ga transport management wax leeyahay haddaad maanta oo dhan deegaankeena dhex wareegto transport management wax leeyahay ma helaysid iyo automotive wax inkaas kuwa technician-ka iyagana wax inkaas oo deegaankeena ka heleen bay noqdeen marka waxaan sameynay in aan dib ugu hadalno oo niraano boordigu wuxuu ansixiyay wax muqaddasa ma quraan ma wala badali kara deegaanka hadii xaqiiqadu la socdo de meel kale in laga keeno meedraba ku dhajiyay meedraba kuma dhajinayno halkan aan ku dhajinayna saddex xafiis ganacsiga degmooyinka yaa wax fiican la qabtay iyagaan u dhiibay warqadii ku dhajiyaan ku niri 12 kaliya taas soo xiraystay sidii 12 ka hal mariyo ku galaan waayo 12 10+2 waxay kula duuyay mee waa accountant iyo computer bay dhigtay ku 10+2 whatever waxay doontaan noqdaan waxaan idhi anagu sidaas aan ku sameeynaa kuwan kale management diploma daan la waan gelinayna qaabkiisaan ku gelinay markii ugu horeysay sanadkan gudihiisa inuu yimid audit engineer badan oo halkan ku shaqaaleynay iyaguna engineer 2 sano iyo meelo 4 sano khibrad loo baahnaa zero experience ku shaqaaleynay iyo wixii horeytaadu wax hadal baa ka yimid shaqaaleyntan dib u la laameena adu waan faansiinay waxaan niri xaqiiqada jirta aan isla aragno hal la arko ma waad sameyseen qof engineer maanta 4 sano leh deegaankeena inaad ku hesho halkan inuu kugu joogo lacag yar 8,000 kuna ma غير macquul ma wax dhici karaya ma waa nin khibradaystay maxaa la yiraahdaa shaqo waaweyn iyo hayaa
marka adu tiina waan isla qaadanay shaqaalihii qaabkiisa aan ku soo xiraynay wallahi waxaan xaggan uga mahadinayaa maareeyihii horeyta ee shirkadda heer federaal nin aad u wanaagsan buu isaguna Mustafa Lorney bidilay waxaan xasuustaa inuu nagu yiri hal qof hadda doontana ku darina wuxuu doonay yimaado dadka deegaanka ka dhiga marka maareey fiican waan haysanay gobolkana iyagana markaan wax garan weyno oo sheegayno hadlo idinkuna dad xaqiina ka dooda adu shaqaaleyntii qaabkaas aanu sameynay shaqaalihiin qaabkaas sameynay maxaa natiijo ka yimiday ilaa hadda 2 sano qaabka wax qabadkooda kama liito kuwa federaalka jooga dadka Soomaalida iyaga siiso hoos isku dhiga oo xafiis federaal kama shaqeynayno gumrug hadii la gala lagama shaqeynayo elpa danka la kama shaqeyn karno iyaguna dadka Soomaalidu ma shaqeystaan xaqiiqada jirta laakiin way kala duwan tahay 24 saacadood shaqadii way socotaa wax maxaa la yiraahdaa magac xumeena oo cilad oo ilaa hadda indima jirto marka dadku deegaanku xafiisyada federaalka sida kuwa kale uga shaqeynayaan si ka fiican bay uga shaqeyn karaan wayna wadi karaan hadii totally loo wada dhiibo gabigeyga hadii electric gala gabi hadii loo wada dhiibo way wadi karaan waayo waa xaqiiqo muuqata qofka isqaabka loo maamulay ku xilan tahay marka shaqaaleyntii qaabkaas aan u sameynay waxa haddana noo haray arrimihii bulshada maadaama wadadii dad ay dhex marayso dadka qaabkeed ula tacaalaysaan wax ay soo harkeen ma xafiisyada federaalka arrimo bulsho wax la yiraahdo iyo leese social responsibility waxba naga saaranay xil baa naga saaran xafiis yiraahdo ma jirto xafiisyada qaar pollution sameeyaan jira qaar mega projectyaal waaweyn oo dul jajabiya jira oo buuro idil burburiya qaar resource ka soo qaata jira laakiin wax ay dib ugu celiyaan xaggaas ma jirto in environmentkii dib u reconstruct gareeyaan in ay waxyaabaha ku bixinayaan maxaa la yiraahdaa qiiqan noqoto board noqoto inay ka compensate gareeyaan wax loo yaqaan ma jirto wadada maadaama ay dadkii dhex marayso iyadana waxaan isku daynaynaa xafiiska kala hadalno in kastay wax badan noo qaban ay lacag 800 wax ka badan wali noo qaban haddana ilaa hadda waan si fiican 3 sanaba way noo qabteen in kastay degmooyinka codsigooga iyo qaabkan u maareynayno ay degdeg ahayn degmooyinka codsigooga 2 sano hore totally degmooyinka faraha ka saaran anagu waxba kama qaban toos maaliyadoodan ugu shubnay waxay naga soo codsadeen iyagu design-ka u meeno keenin annaguna lacagtaan u shubnay sidaas school bidilay way dhiseen oo dayactir way ku sameeyeen maxaa la yiraahdaa bulshada bilowday head isagoo bilow ku bargoay waanu dhameystirnay hadda sawiradiisu aan hayaa biyo gelinta qasabada waanu soo galinay markaan qasabada soo galinay maxba ku dhex go'ay iyo wax aynkaasna way jiraan laakiin mid in la ogaado ay tahay waxa weeye xafiisku xafiis federaal ah wax xuquuq ah ay ku leeyahay deegaanku waxa sooran karo iyaga kala gorgortami kara xafiiska dakhli haday noqoto deegaanka kala gorgortami kara laakiin sidii degmooyinkii in loo arko oo la yiraahdo waxa halka ka qabtay waxa halkan ka kala dhacay wax xuquuq ay ku leeyihiin ma jirto laakiin muwaadiniin ahaan annaga damiirkayga wuxuu na siiyo wixii loo qabtay in aan gaarsiino bulshada oo wax yaani la taaban karo hal project wax buuxin kara ma hal project ma waa iska magacoon laakiin meelaha yar gudarooladu ka jirto inaan u dhiibno biyaha waxaan la hadalay jijiga waan la hadlay waan weydiiyay laakiin degma jirto degmadii in badan baan iyagana ku celinay xitaa annaga nuulka idinka bixinayna ku taga jijiga marka shinilayada iskool ay naga soo codsatay dayactir baan ku sameynaa tiri maaliyadaan ugu shubnay hadda har mukaale ayaan ku jirnaa processkayga biya insha Allah iyadana waan ku guuleysanaa wixii wixii ku qabataan oo adigu aad xariga ka soo darto xafiiska degmooyinka qaar inay sidii la rabay u fuliyaan marka lacagta shubtaan laba caqabadood baa jirta xagga mid hore waxa weeye kolkaad lacagtii shubto dabagal ma sameyn kartid way awood ma liito gobolna ma tiid xafiis federaal tahay degmadii ma oran kartid lacagtii ugu diiba xageed maris totally mar hadaad galisay waa saad u galisay xafiiskayguna wuxuu iska diidan yahay jujuubka la maray audit-kii iyo
wixii aad bixisay in ay iyagu xafiiskii xaggan dokumenti gareeyaan rasiidka ee bank kol hadaad haysato auditkii anu waan shubay meeshii la sameynayna waad soo tusin macal salaama intaasay rabaan laakiin sanadka waan ka diidnay waxaan nidhi maadaama khibrad ku aragnay degmooyinka hawlooyin kale way badan yihiin marka xabaddan yaraan anagu sameynayno xitaa inaan dadka wadada investoryaashan wadada inaan wax isku yara darno oo maxaan yiraahdaa wax yar oo la taaban kara la sameeyo no waan isku daynay cement fabrica halkan waan keenay waxaan nala joogay xafiiska ganacsiga ee gobolka oo nala qaatay marka hadda kadib tan imika harmukaale anaga gacanta ku hayna insha Allah anaga qof maxaan yiraahdaa sameyn kara anaga dhisayna faraha waan ka saarayna furaha marka ama siinayna marka waa khibrad waxaad ku qaadanaysid xafiiskayguna wax ku ka yar ma ganaa kuwan federaalku ay lahaayeen halka naga yar daayo oo farahan ka saara halkana anagi in aan daba gallo awood u leeyahay marka hadda saasaan u sameeynaa marka arrimaha bulshada midda in si fiican ay bulshadu garataa waxa weeye xafiisku waa xafiiskii ugu horeeyay waxaan sameeyay ee federaala kuwa kalena inay nagu daydaan ma ka digaynaa insha Allah annaguna waxaan qaban karaynaa laakiin dadka waxa iskaga yara laaqan in ay shirkadu Shiina tahay mar Shiina iyo lagu orani horta Shiina ma qofna si deegaanku moodiyo deegaanku muxuu halkan la hadlo muxuu xaq kala sameeyo war deegaan ma xafiisku maadaama qof Soomaali oo maaray iyo dad yar oo maamulaadka laga dhaxarkayo sidii deegaan oo kale in loo la xisaabtamo ma xafiisku waa xafiis federaal uu ka madax banaan yahay deegaanka laakiin in waxaan xiriir fiican la leenahay gobolka degmooyinka maamulka ciddii noo timaade ee danaynaysa danta guud xiriir fiican baan la leenahay waana sii xoojinaynaa taa was arrimaha bulshada adeega bixinayna isagana waxa ka mid ah maxaa la yiraahdaa waa in wadadii lacag ku maristii in xamuulkii wixii wax waday inaan lacagtii u goyno lacagtii ka qaadno iyada midaas si fiican bay u socotaa halka gaariya 13 second wax ka badan inuu joogo looma ogolo hadii ay cilad kale jireen oo leerku goyn midda kale kulba gaariyaashu baaxadoodu siday tahay waa 8 qof waxaan meesha ka shaqeeya halkan imika waa inay 16 qof joogan oo baalkii ururiya lacaga 16 qof imisil baab ka shaqeyn karaan afar albaab Soomaa hadda laba albaab ba furan waa gaariyaasha yar markay beeraana afartaba waan furnaa marka adeegaas lacag ku marista waan bixinaa midda kale wadada waan marnaa haday xiran tahay haday cilad leedahay haday shil ka jiro in aan furno xitaa hadii nafbax iyo leeso wax dhiig baxay jiro in aan qofkii qaadno dhakhtarka gaarsiino wadadiina in shil kale ka yiman aan wadadii banayno ambulance asar waa la keenay kreenkii hadda uu soo socdaa marka kreenku markaan wax ku qaadayno gaariga dhacay inuu insurance keensado uu qaado weeyaa wadada ka qaado hadii laakiin annagu ay ku qaadi waayaan waqtiga aan ugu tala galay inaan annagu tagno qaadno laakiin ay bixiyaan lacagtii lagu qaaday ay bixinayaan marka hadda kreen ma haysano waxaan uga kareynaa meelaha kale aan uga soo kareynaa marka waxaan kareyno annagu inta badan ma bixino toos qofkii loo qaaday iyo meeshan uga soo kareynay labadaan xidhinna labadaas kala qaata mar kaliya inay dhacdaan maleynayaan inaan bixinay oo ciddii aan ka qaadan lahayn aan weli ka qaadan laakiin inta badan iyagaan isku daynaa aan bixin ilaana ambulance-guna degmooyinka way caawiyaan diltoora aad bay noo caawisaa degmada ay shacab aad bay noo caawisaa oo cali sabiix ina la xiriirsan marka maadaama xagga u duuday qofku inuu qulbixin inta xagga loo soo wado cali sabiix in halka la geeyo marka ay shacab xaggaas aad bay nooga caawisaa midda kale wadada hadii damage gaaro ay dib gaadho sabir la jabiyo mise wadada ay wax noqoto in compensation intii lamida laga qaado si dib loogu dayactiro iyadana waan sameynaa inta labada sano in jirno maadaama guarantee period iyo wax warranty leeyahay ku jirno qoladii qandaraasle wadada sameeyay wali warranty-gu ugu dhamaan qoladii Shiinaha meelo tayadara aday jiraan inay dib iyagu sameeyaan baan ku qasabnaa in kastay qoladii lacagta bixisay ira inay ku qasabtay tahay aduu waxbaan isku daynaa inay sameeyaan
anna weli dayactir buuxa maan gaarin weli oo awooddeedu weli way yar tahay laakiin hadda waxaa la samaynayaa qaab dhismeed cusub in shaqaalaha inta badan ay noqdaan qoladan lebarka la yiraahdo wadada sameeysa dayactirka in qoladan noqdaan yaa la isku wada iyaan ku wadnaa takala maxaa la yiraahdaa adeegyada aan bixin karno waxa kamid ah aan wali bixin in meelaha gaar inaan ku sameeyno station yar oo dadku ku nastaan wada aragtaa maan maleynay wadooyinka dhaadheer marka la marayo magaalo yar oo isoo meel yar oo kaalin shidaal dukaan yar meel yar oo la seexdo la sameeyay magaalo mud degan waxa la doonayaa qofka darawalku markuu muddo dheer wada gaariga meel uu ku nasto meesha halkaan waa wadnaa bidiliyada daraasad baan ku jirnaa hadday noqon karto xaggan darabayadana waan la kaashanay daraba gaariyaasha inta badan dhex seexanaya inaan ka soo saarno mahabar ay samaystaan oo meel weyn inta la siiyo hotel daraba meel ku fiican ma gaariyaasha wada toos ama leh wadooyinkayguna way dhuudhuuban yihiin culayska lafteeda ma qaadi karaan marka daraba lafteeda waxay rabtaa in laga saaro oo gaarigu markuu daraba soo galo toos uu soo baxo meel uu seexdo qofka magaalada uu ka soo adeegto intuu gaariga dhigto laakiin shirkada caynkaas soo dhulkii qabsanaysa maadaama ay jirin daraba xafiiska transportiga la kaashanaysa iyaduna annaguna waan weydiinay gobolka dul caynka haddii la siin karaan aan anagu sameeyno tawanle hadda hal terminaal laga sameeyay in gaariyaashu halkaas taagaan inkastoo qaabkii tayadii ugu fiicnaa ay loogu talagalay loo sameeyo marka iyadana adeeg caynkaasna waan bixinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo على كل حال ودد أجاركي لفتيدا وحيوان لو دادني قشنكا يدنا لفتيد إن من الله سميه حرون وان سموان سكوت ديني وان ونا وهذا إنجنير ده حيسمينا المشي لوجري لكن دتك إني ما برادات كديك تو حيسوا أوروني يعني حلقة كوروني يعني ميزان كويريا قلا دي درب وان كقاعدنا الناترين ولا عير مركز اسمه نقانس مركز هالقفو إن طول سكوا دقات هدي وحيوان نقان كرتو iyadana taas waan ka caawinaynaa meelihii loogu guriyay isaga waa lagu tuuniyo waa cagad maran silib dusha banaan waa loogu tuuniyo qolada xagga ka qaadanaysa gaariga soo diranaysa markuu gaari buuxsamo way ka qaadanayaan marka iyada taasna waan wadnaa insha Allah waxa la wixii abuur een karayno ee dikada agaarkayga socdo insha Allah waan wadaynaa marka adeegaan way bixisaa shirkadu dikada maxaa la yiraahdaa sawirkayga guud خلي هورنا وانو بحي في عن بوزيا شقاب كل عقد الله بحيه مركا وقاب كاس إن شاء الله